Soomaaliya toosa isku tirsadeen habbankiina qaar ka mid ah haweenka Puntland oo ku sugan magaalada Garowe caasimada Puntland ayaa soo dhaweyn balaaran u sameeyay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo muddo ku sugnayd magaalada Garowe caasimada Puntland xaflad soo dhaweyn balaaran maanta ugu qabteen gudoomiyada magaalada Garowe caasimada Puntland ayaa waxa ka qayb galay haweenka kala duwan ee ku nool magaalada Garowe caasimada Puntland oo kuwan qaar ka mid ah haweenka Puntland oo si weyn u soo dhaweeyay magaalada Garowe caasimada Puntland Batuule Sheekh Axmed Gaballe waxaana hadladoodii ka mid ahaa waxaan rabnaa haddii ilaahay in gabdhihii Soomaaliyeed oo Puntland matalaya waa kuwa mar walbana Soomaalinimo dowladnimadeeda ayay raadinayaan oo aan ku jirin wax caad leh annagu shuruud la'aan baan ku shaqeynaa lacag la'aan baan ku shaqeynaa waxa uu dalka difaaciisaan ku jirnaa mar walbana diyaar baan u nahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta isaga timi shaqadii ugu badnayd gabdhahaasa qabtay oo wufuudda imaanaysa iyo wufuudda timi gobol haday tahay iyo haday soo dhaweyn tahay waxa qabta waa gabdhahaas waa gabdhaha madaxda u ahayd qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay xafladda ayaa soo dhaweeyay gudoomiyaha haweenka waxayna haweenka Soomaaliyeed ugu baaqeen inay midoobaan Batuule Sheekh Axmed Gaballe ka soo gaaray anigu waxaan anoo yar arkay aan garanayaa iyadoo baa u dhacdo 83 oo shaqeysa ururka haweenka Soomaaliyeed waxay saaxiib ku ahaayeen hooyaday jooxigay la faaraxood garanaysaa oo shan kala sano ka ahayd xildhibaanad qaran Puntland inkastoo hadda xanuunsan tahay waxa weeye muwaadinimadana waa la isku dhalaa waxay ugu xornaa inaan ka dhaxalno yaani waxyaabo badan aniga ku hadlaaya gabdhaha Hirshabeelle magacoora wixii aad noo qaadeen oo ku duubsanahay oo gudoomiyahayna ay tahay Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaan idin la qaadanaa waxaan idin hibayaynaa hambalyo alla soo koobi karay idinka iyo madaxdiinaba waxaan ilaahay ka rajaynaynaa nabadda Soomaaliya cid walba idoo la soo qasbin madaxweynihiina ayaa keena sharafkiisa iyo magaciisa weyne ilaahay waxaan ka bariyaa inay noqoto meeshii nabaddu ka ukatay oo Soomaaliya ku midowday inay tahay Marwo Batuule Maxamed Gaballe waxaan halkaan u soo jeedinayaa anoo ku hadlaya gabdhaha Puntland ka codsanayna madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha maadaama aan aragnay anagu dhab baan ka maqlaynay khilaaf jiro xilligan xamarnimina aanu dareenay in labada sano dawladdan u hadhay ay nagu matalaysa gabdhaha Puntland hadaan nahay Marwo Batuule Gaballe gudoomiyaha haweenka Soomaaliya Batuule Sheekh Axmed ayaa u mahad celisay haweenka Puntland sida wanaagsan ay xafladan ugu soo qaban qaabiyeen waxa kale oo ay sheegtay in dhawaan ay qaban doonaan shirweynaha haweenka anoo ku hadlayo magaca guddigii aan u ahaa gudoomiyaha ama muftigaan hogaaminayay inaan kaga mahad celino sida ay u sheegtay xogayaha guud ee ururka haweenka Marwo Faadumo Aadan dadaalkii badnaa iyo soo dhaweynta ugu badnayd oo runtii la moodayay in maaragtay haweenku ay yihiin dadka hormuudka u ah ama maaragtay hawsha meesha ka socotay indhaha u ah aad nagu qaabisheen runtii aan kala go'a lahayn ilaa maantana aan isor fadhino oo halkan goobtan aan ku shiray la dhacday aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa dadkeena banaanka jooga waxay sugayaan dalkooda nabada iyagana dib ugu soo noqdaan aan ku dhigno gobasha iyagana oo aan u fiirino inay dalkooda nabada ku soo noqdaan qaranimada iyo calanka dadka u soo dhintay waxaa ka sii hadal badan kuwa hadda dadka isu keenaya horba ay Soomaaliyeed waxaan kaga tegayaa mahadnaqooda caafimaad waxaan leeyahay ka baryaaya inaan horumarka aad gaarteen aad sii kordhiseen waxaan ugu ducaynayaa wanaagga iyo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed haysa ilaahay inuu miistiyaariyo Hussein Xasan Cadde telefishinka caalamiga ah Ariel TV Garowe